arrimaha inta badan aan ka hadlaynay way isu dhawaayeen waxaan ka hadlaynay arrimaha runtii Soomaalida oo dad walaalaha ahaa aniga xilliga qabashadaydii iyo qadiyadii ka dhalatayna aad iyo aad Soomaalidu meel joogtaba ay uga dhiididay damiir iyo dadnimada ay mideeyeen ficilkoodana ay ku muujiyeen marka ugu horeysa inaan uga mahadceliyo takaleeto arrimaha muhiimka ka hadlayna waxay ahayd dadka Soomaaliyeed oo muddo 30 sano ku dhow dagaal iyo dhibaato iyo burbur haystay inaan qayb ka noqono dib u heshiisiintiisa iyo walaalayntiisa iyo isu furidii dadka ehelka ah iyo qaraabadii arrimahaas si fiican baan uga hadalay aad iyo aadna u soo dhaweeyeen door muuqdan oo inay ka qaadan doonaan way noo sheegeen marka safarkaagu in Hargeysa xagga uga dhaqaaqaysa markaasi in wadiga ila kaftamay laha ila beled weyne ila giddi ila iyo Kismaayo raace ni wad ma santay safarkaygu boosaasan horeynayna kadib waxaan galaynaa safar dhulka ah boosaasa waxaan isku arkaynaa hadda diyaar nooga madax badan oo in ma tagaysaa Muqdisho iyo ma tagaysaa halkii laga qabtay gaalkacyo safarkaygu ku xiga Puntland wuxuu noqon doonaa hadii Ilaahay galmudug buu noqon doonaa ilaa iyo maartay gaalkacyo cadaad dhuusamareeb suuragal inuu safarku dhulka noqdo marka muddo halkaas aan sii joogi doonaa hadii Ilaahay Muqdisho magaalo madaxdii ma hadayn karna hadda inaan Muqdisho hadda xadiidaya hadii aad la kulantay in madaxdii kale in مثلا Somaliland Puntland in aad madaxweyne farmaajo madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya la kulanto horta Muqdisho waxa jooga dad Soomaali oo aad iyo aad u fiican shacbi wanaagsan oo Soomaalinimadu ay aad ugu weyn tahay oo qiimo badan oo aad u karaamo badan baa jooga sidoo kale waxa jooga golihii baarlamaanka labadiisii aqal way joogaan aad iyo aad xurmaya sharaf u leh dadka Soomaaliyeed ku weyn qadiyadaydiina iyo qadiyada Soomaaliyeedna runtii injilimadii laga galay si fiican u difaacay intuba way mudan yihiin inaan soo salaamno insha Allah xilli ku haboon baan soo salaami doonaa laakiin ma doonayo inaan hadda wax badan ka sii sheego qolada kale ma rabo inaan arko in Cabdikariim Sheekh Muuse qalbi dhagax Hargeysa waa joogtay waad arkaysay aad baa lagu soo dhaweeyay laakiin dhinaca kale hadaynu eegno dad cabanaya baa jiro oo la leeyahay markii oo lafta u ahaa baabuur masalan oo awoodiisa lagu gubay baa jirtay oo burco ay ka hadleen oo kale dhowr nin inkastoo leeyahay waaba la xiro dawladda xidhay arinta balka war maxaad kale niyo arintan horta xilli horena waan maqli jiray inkastoo goobjoog ka ah arintaas amarna aan ka bixin sabab amar looga bixin kara iyo qorshe urur qaatana ma ahayn waxay ahayd dhacdo oo ka dhinaca labada dhinac mushkulada ka dhashay dadka shacbiga ah ee deegaanka way fulin kareen hawshan ururka laftigiisa kulliide wax badan oo dhibaatooyin way dhacayeen waa laga yaabaa inuu mararka qaar kood soo dhaxgalayay laakiin qorshe urur ma ahayn qorshe istiraatiijiyad urur noqon kartana ma ahayn hadii ay ONLF dadka Soomaaliland colaad u qabto baabuurka dadka saaran ayay qaban lahayd xili lahayd xukumi lahayd bilo sanado xili lahayd laakiin ma ahayn colaad qorsheysan ma noqon karo hanti ummadeed in lagu ciyaaro ama lagu waxa leeyahay adigu in arintan faqat in wax aad ku shaqulahayd ma jirto iyo mas'uul kale midna amarna kama bixin go'aan iyo tarajadeedna midna ma ahayn laakiin way ahayd khaladaadyo dhacay oo dhinaca kale waxyaabo ka imanayay runtii dadku kaga jawaabaya cadooyin uu qabay waxyaabo saas way jireen laakiin ma jirin wax anigana amar kama bixinin madaxda kale ururkuna amar kama bixinin tara iyo go'aan ma ahayn xataa ma xusuusin hadda qof hebel la yiraahdo mas'uul sara oo arintaas xogogaal xataa ka waajibaadkeedii hore laakiin dhacdooyinkan way dhici jireen waxa kale oo jiray dad badan oo iyaga laftooda hubaysan oo Itoobiyaanku ay hubeeyeen oo runtii akhlaaq xun oo Maleesiyaan iyo dabaqoodi iyo waxyaabo nayu booliis iyo mushkulada badan baa jiray oo isdhex socdo oo mid walba dhibkiisa watay marka annagaas doorka aan ku lahayn aad bay u yartahay laakiin hawlahan marmar way dhici jireen laakiin ma aha qorshe oo ONLF runtii ma usanahay qorshahaas muxuu yahay hankaaga siyaasadeed dadka qaar baa leh Cabdikariim Sheekh Muuse qalbi dhagax waxa uu noqon doonaa madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida ayuu noqon doonaa dawladdaas Itoobiya mise in halkiiba ONLF ka wadaano aad doonaysan in marka gobolkaasi uu xornimo goonista ka qaato Itoobiya barnaamijkii hore aan ku soo jiray in la xaqiijiyo xorriyadda shacbiga ogaadeenaya Soomaalida ogaadeenaya in la xaqiijiyo asagoo halkiisii iga taagan yahay waa in dadkaas ay ayahiisa ka tashadaan waa in wax la yiraahdo gumaysi iyo cadaadis oo ummadayada ka dhamaado haddana arintaadu meel fiican bay maraysaa waxaan isleenahay xal waa la gaari doonaa insha Allah ta'ala taas waan sii wadi doonaa waxa iskama kay bedelayaan dadka igu soo biirtay waxa weey bacdama aan noqday qof Soomaali oo dhan u heelisay Soomaali oo dhan ay baratay inaan qayb ka noqdo xal u helidda xaaladaha qalafsan iyo mushkuladaha Soomaaliya oo qayb ka noqdo dib u heshiisiinta iyo isu keenida walaalaha Soomaaliyeed shantaba inaan ka hawlgalno waan doonayaa insha Allah in ka waran xiriirka adiga iyo Itoobiya idin dhaxeeya مثلا إمك
aniga xabsigii aan ku jiray waxa iga soo daayay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed si fiican ay qaabilay xafiiska ugu yeer aad buu runtii sharfay si akhlaaq badan buu ila dhaqmay ilaa hadda waan uga mahad celinayaa sida uu runtii ugu maamuusay sideynteydii iyo siduu aan bixiyay iga soo markaan aan baxayay iyo qorshayaasha aan ku soo baxayay sidoo uu runtii u abaabulay iyo amaradu ka bixiyay aad buu fiicnaayeen ilaa haddana waxaan aaminsanahay in hawshii uu sameeyay ay ahayd arrin aad iyo aad u fiican oo uu sii ballaariyay oo qodobka argagixisada ummadda lagu xaqiray dhiigeeda lagu banaysanay meesha uu ka saaray oo wana la fiyo ururada gobolka ay ku xukumeen qoliyii ka horeeyay groupkii Tigrayga ay hogaaminayeen hawlo badan oo kala uu qaaday maxaabiis badan buu sii daayay aan kuwa qayb ka ahaa ilaa hadda waxaan is leeyahay marka hawlaha ay qabtaan waa hawlo aad iyo aad u wanaagsan oo positive ah waana sii socon doonaa miyay jirtaa inaad wax hawlo ka hayso in Itoobiya passport diblomatic ku sii ma yani aniga diblomatic Itoobiya ma qaadanin wax hawlaana kama hayo Itoobiya waxaan ka soo baxay July 5teedii baan ka soo baxay waxaan transit ku soo maray airportka 25kii bishan hadda aynu ku jirnaa 9aad baan transit ku soo maray 3 saacadood baan airportka joogay wax cudur kama qabin laakiin wax shaqo aan kama hayo